mas-uuliyiinta xisbiga UCID ayaa waxay agab ciyaareed gaadhsiiyeen kooxaha ka dhisan degmada Salaxley waxaana halkaasi ku qaabilay oo ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Salaxley ee Saydo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Salaxley ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xogayaha ciyaaraha ee xisbiga UCID Faarax Axmed xogayaha xiriirka laamaha dibadda iyo xarunta dhexe Mustafa Cabdirasaaq iyo ku-xigeenka xogayaha hirgelinta siyaasadda xisbiga Cabdiraxmaan Cismaan Guhaad waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan idin ballan qaadanaa xisbi ahaan intanoo kaliya ma aha inaan idin garab istaagno haddii xitaa garoomada la dhisayo wixii anaga nagaga soo hagaaga inaan xisbi ahaan ka qayb qaadano oo aan maxay ahaydeen weliba aanu la wadaagno gudida maxay ahaydeen fulinta xisbigu leeyahay baahiyahaanu degmada ku aragnay in runtii degmadu u baahan tahay garoon weliba iyadoo wasaaradda dhalinyartii ciyaaraha xaq loogu leeyahay inaad heshaan xaqa ay helayaan dhalinyarta kala degmooyinka taasoo maxay ahaydeen u gudbin doono wasiirka ciyaaraha haddii wax ka qaban waayana xisbi ahaan karaankayaga wixii aan ka qabanno aanu ka qabanno waayo xaq baad u leedihiin inaad heshaan baahi kasta oo dhalinyarta Somaliland joogtaa inay hesho waa waajib saaran wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha iyaga xaq ugu leh hadduu inanku tuulo joogo iyo hadduu degmo joogo iyo hadduu magaalo gudaheed joogaba inay xaq siman ay u helaan waxaan idin ballan qaadanaa xisbiga UCID insha Allah markuu ku guuleysto in aanu idinla sino degmooyinka Somaliland oo dhan inaan taraag dheer u soo galno inaan maanta idinla qayb qaadano farxadiina anagoo idigu wareejinayna agab ciyaareed koob bilado kubado taasoo lagu qaban doono koobka uu dhigay 5 degmo ka dhisan degmada Salaxley iyo hal degmo ka socota degmada Balmataan xisbiga UCID inuu mar walba diyaar u yahay dhiirigelinta dhalinyarada horumarkooda isbarbartaagooda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxa uu qorshaysan oo mabaadi'diisa guud ku xardhan ku suntan in uu maalgelin ku sameeyo markuu talada dalka uu ku guuleysto maadaama dadka deegaanku ay yihiin dad xoolo dhaqato ah deegaanada hoos yimaada Salaxleyna ay yihiin deegaano aad u fara badan dadka deegaanka ka soo jeedana 60% ay yihiin dad xuduudka ka tallaabay oo xuduudka runtii baalmarsan in la sameeyo bangi dadku lacagta ay ku kaydsadaan waxaad ogsoontihiin xukuumaddu inay bangi ka sameysay gobolka Hawd waxaad ogsoontihiin xukuumaddu inay bangi ka aasaastay oo shaqeeyo degmada gobolka Oodweyne xukuumadda waxa looga fadhiyaa inay degmada Salaxley ay ka dhagax dhigto bangi dadku ay lacagta dhigtaan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Saydo Farxaan Cawil iyo mudane Jamaal Xuseen oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Salaxley maantana aad baan ku faraxsanahay xisbigii markii labaad inay alaabteena soo gaarsiiyeen meeshana ma ahayn meel cid gaar ah u xidhan xisbi wal iyo shakhsiyaad wal iyo hay'ad waliba waa meel dhalinyarada loogu talagalay inay wax ku barato barnaamijyadooda ku practice gareeyaan cidii caawinaysan ay ugu soo hagaagi karto aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka dhamaantii waan idin mahad celinayaa halka waxaanu ku gudoomaynaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo maanta soo gaarsiiyay dhalinyarta deegaanka degmada Salaxley sportiski oo isugu jira kubado iyo garamaan iyo agabkii kale ciyaaraha ee ka mid yihiin biladaha ugu dambeyn waxa dareenkooda cabiray qaar ka mid ah dhalinyaradii la gaarsiiyay agabka ciyaareeda waxaan horta mahad gaar ah siinayaa xisbiga UCID oo isagu mar walba u hawlan inuu dhalinyartii degmada Salaxley wax soo gaarsiiyo iyadoo xukuumaddii iyo wasaaraddii ku shaqada lahayd ay gabtay inay wax soo gaarsiiso degmadeedii oo xaq waliba ay ugu leenahay ka dhalinyaro ahaan iyo ka wasaarad ahaan aan wasaaradda ciyaaraha xaq ugu leenahay haddana garan miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada ciyaaraha nooguma jiro wasaaradda ciyaaraha nooguma jiro xabad nigsi inay miisaaniyadda noogu darto kumanay talagelin waxa aad iyo aad ugu mahad celinaynaa gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo isagu
aad iyo aad ugu hawlan inuu dadkiisii wax soo gaadhsiiyo aanu xisbiga cadaalad iyo daryeelka wixii aanu kala wareegaynay deeqdan uu na soo gaarsiiyay ee qalabka sportska isku jira nooc kasta oo kamid ah halkan maanta waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan maamulka iyo madaxda xisbiga cadaalad iyo daryeelka wixii maxamed midho qorsame Ariel TV Hargeysa.